agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda koonfur galbeed iyo waliba geeka isbitaalka guud ee gobolka Baayose ka daahfuray adeeg caafimaad oo indhafiiqis iyo daaweyn oo bilaash kaasoo ay ku faa'iideysan doonaan 400 qof oo indhafiiqis iyo daawo bilaash ah soo ku faa'iideysan doonaan 4,000 qof barnaamijka waliba si wada jir taageeray Islamic Bank iyo hay'adda Human Appeal gudaha isbitaalka gobolka Baay oo indhafiiqista la ka daahfuray waliba sidaas haato gobro ku hayay madaxa ku dareertay hay'adda fuliyahayd iyo agaasimaha guud ee isbitaalka angoreyn madaxa ku dareertay hay'adda taageerada barnaamijkan iyo faahin ku biya adeegan iyo muhiimada u leeyahay xaqiiqatan farxad weyn ay tahay in halkan maanta joogo Baydhabo oo aan qayb ka ahay ololaha la dagaalanka indhabeelka laga hortagi karo oo aan bixinayno adeeg bilaash ah oo indhafiiqa iyo sidoo kale daaweyn iyo la tacaalid cudurrada indhaha ku dhaca sidoo kale bilaash ah xaqiiqatan maamulka wasaaradda iyo maamulka isbitaalka waxa uu madceleynaa sida qiimaha leh ay noo soo dhaweeyeen inagala qayb qaadanayaan adeegga muhiimka ah ee dadka masaakiinta loogu talagalay intii karaankooda ah waa ugu mahadceleynaa waxaan kaloo rajaynaynaa in inta aan joogno ay nagala qayb qaataan in yoolkeenna ah 400 qof oo aan qaliin bilaash aan siino oo aragooda aan soo celino iyo 4,000 oo daawo bilaash aan siino oo cudurrada indhaha ku dhaca aan ka daweyn inay agaasimaha guud ee wasaaradda ugu horeeyo iyo agaasimaha isbitaalkaba ay nagala qayb qaataan taasna waa rajaynaynaa way noo ballan qaadeen way ku mahadsan yihiin aniga ku hadlaya magaca hay'adda Human Appeal mashruucan aan ka wadno ololaha indhaha caafimaadka aan ku gaarsiinayno dadka u baahan oo aan iska dhiibi karin waxaan u mahadcelinaynaa madaxda wasaaradda caafimaadka sidoo kalena waxaan u mahadcelinaynaa maamulka isbitaalka sida ay nooga qayb qaateen inay u hirgalo mashruuci aan ka wadnay gobolka Baydhabo dadka baahiyaha gaarka qaba in maanta 400 qof oo indhaha loo fiiqayo iyo 4,000 oo qof oo la daaweynayo maanta inaan ka soo qayb galo furitaankooda waa waxaan u taaganahay habeen iyo maalin bulshadan in oo dadka baahiyaha qaba in oo macnaha loo adeego iyo dadka kale ee xanuunsan loo adeego insha Allah waxaan rajaynayaa si wanaagsan in ay maarta arrintan uu dhaqangeli doonto maanta laga bilaabo inta hawsha ay socotana shaqaalaha waxaan ku dhiirigelinayaa inay macnaha hawshooda si wanaagsan u qabtaan wixii caqabado ka hor imaadana annaga diyaar waa u taagan agaasimaha guud ee isbitaalka u taagan insha Allah saa waqti laga annaga haddaan baxno waxaan ku soo dhaweynayaa insha Allah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay runtii inaan ka soo qayb galno munaasabadda ololaha indhafiiqista oo socon doona muddo 10 maalmood ah in nagala soo qayb galeen agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo bahda wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan hay'adaha oo bartenderka Human Appeal iyo wasaaradda caafimaadka federaalka runtii farxad weyn inoo tahay in bulshada goolka wasaaradda caafimaadka ay qayb ka tahay in maxallahay qof kasta oo maxallahay kamid bulshada uu helo adeeg caafimaad oo kumbaleed ah runtii ololahan 10 maalmood uu socon doono waxaan rajaynaynaa inaan gaarno 430 bukaan in la daaweeyo oo helo indhafiiqis oo ku filan oo daaweyn ah runtii waxaan wasaaradda caafimaadka iyadoo guulaheeda iyo hadamanaankeeda horumarinayso ayaa waxaan sameynay wacyigelin agaasimaha isbitaalka gobolka Baay waliba ku mahadnaqay hay'ado iyo barnaamijka taageerahay in dadka danta yar iyo halaan adeeg caafimaad oo bilaash waxa farxad weyn noo ah in barnaamijkan oo hadda aad u jeedaan oo boorka ku qoran oo indhafiiqista ah oo isla markaasna kaalin weyn ay ka qaadanayaan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo oo isla markaasna ay tahay muhiimadda iyo hadafka iyo ka go'naanta in bulshada caafimaad rasmi ah la gaarsiiyo wax walbana markaas ay u baahan laga xaqabtiro ayaa markaas maanta waxa Ilaahay oo noo suurtageliyay in isbitaalka gobolka Baay aan ku soo dhaweeyo dhaqaatiir kala duwan ee ka socoto magaalada Muqdisho isla markaasna hadafkoodu uu yahay in halkan ay ka fuliyaan indhafiiqis oo isla markaasna gaaraya tiro ilaa 400 qofood oo markaas indhaha loogu fiiqayo isla markaasna daadihinayo ama hormuud u ah
agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed oo ah isla markaasna nin markaasi oo u soo jeestay in bulshadan koonfur galbeed oo adeeg caafimaad hufan in la gaarsiiyo hadafkiisuna uu ahaa marka in bulsho caafimaad qabto in laga helo deegaankan ka dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda koonfur galbeed Ibraahim Aadan Ali Soomow oo daahfuray olole caafimaadka sida bilaash ee bulshada ka suubiyahay daaweyn iyo in fiigeysiga waliba ku mahadnaqaya dhaqaatiirta fuliyayta mashruucan iyo hay'ado taageero anoo ka hadlaw magaalada iyo magaalada wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Abdullahi Dr. Ahmed Usman Haji Abdi oo meel raayis kumada oo iidan ku warhay macnaha howlumgeekan dareerta marka xaqiiqdii iidan ka faraxsana ani aan qayb gala barnaamijkan eed muhiimkan oo in macnaha 400 oo arag kumagon ilaahay macnaha in sheegada dhaqaatiirtun Dr. Ahmed iyo Dr. Said macnaha in sheegada galantiyo iyo tiimka shaqaalaha macnaha kanaga iyo ilaa iyo 400 kala oo macnaha in sheegada ani la si adeeg caafimaad oo handho la xiriir oo bilaasha nagado macnaha in sheegada ani la nolosha la abar la kormeer كده وباهن دولسي مركا فرصة إذن وين أوكي كمان مقالات بيرو كفرنتي واي يجو إن شاء الله هذا دون مدين كده بيت أو ميل فرايس هولون الكفوليو مقالات بيرو كارهان اسبتال كوين ما يساسوك الرجال إن شاء الله هذا جدا مهم كأنه ندرسنا دقموين كلا يوم ميل رايس قبله دعانا كونفور قلبت سوماليا معناها باهية عفمات جرا لندبوله سوتها ما يفضل إن شاء الله يعني هذيك عفمات هوجل للدير ميل رايس بلشدي نباهنا إن شاء الله سفوض ونقدرنا نشرف ويانا